mas-uuliyiin isugu jira heer deegaan, heer gobol iyo heer degmo uu horkacayo wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Faatax ayaa soo kormeeray mashruuca ballaadhinta dhismaha ee ka socda kulliyadda waxbarashada macallimiinta dowladda ee gobolka Liibaan. wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Faatax ayaa sheegay in mashruucan dhismaha ee ka socda gudaha kulliyadda waxbarashada uu yahay mid ballaadhin ah oo looga talagalay in ay ardayda seexdaan maadaama ay ardayda wax ka barata kulliyadda ay ku yareed goobaha ay seexdaan. sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in mashruucan iyo kuwa kaleba ay ka wadaan gudaha kulliyadda waxbarashada ee dowladda ee gobolka Liibaan. waxaa farxad weyn oo inaan dhex joogno doolow goobtan haddaan taaganahay waa goobtii loogu talagalay chiefka ardayda ee kulliyadda macallimiinta ee doolow. kulliyaddani muddo ay soo jirtay laakiin ahmiyadda ay leedahay inaan tiro badan oo tayeysan aan soo saarno macallimiin waxay u baahan tahay inaan ka fikirno macallinka muddada uu ku xariisan yahay meesha qaabkuu noolaan lahaa, goobtuu seexan lahaa, goobtuu wax ku baran lahaa. marka laba baloog oo kanaan dhex taaganaya ka ku xiga oo kiiba 66 qol uu ka kooban yahay 120 iyo dheeraad qol ay ka kooban yihiin ayaan loo dhisayaa kulliyadda. waxaan ku tala jirnaa insha Allah 2014 ee dhamaystirmaan. capacity ahaan marka la fiiriyo tirada guud ee hadda ardayda dhigato tirada ugu fara badan bay qaadan doonaan markay dhamaystirmaan. goobtii ardayda ku cuntayn lahaayeen, goobtii ay seexan lahaayeen oo dhamaystiran inay helaan. kulliyaddani hornaanteedii hay'adaha ka shaqeeyo gargaarka bini'aadamnimo shaqo ay qabteen bay ahayd bilowgeedii, laakiin dowladda la wareegtay. maadaama dowladda la wareegtay tiro badan ay soo saarayso waxaan u baahannahay inaan dhismahan aan ku xoojinno. waxyaalaha kale ka dhimanna waxaan ku tala jirnaa sidoo kale xasaab badan inaan samayno muddo kooban gudaheed oo sanadaan ka badnayn 2014 inay ku dhamaataan dhismayaashan rajaynaynaa. dhabti qiimeynta iyadu dhismahan soo socda aad buu qurux badan yahay. la yaabaa mararka qaar garshiyada u baahanayaan xilliga u baahanayaan inay helay waayaan magaalada fog maadaama ay tahay goobihii adeega laga helayay aad uga fog tahay. laakiin 2014 miisaaniyadda u baahanayaan oo loo dhamaystiro iyaguna dadaal intaa ka badan intay sameeyaan xilliga ugu gaaban ay ku dhameyn karaan inaan ku dhameeyaan inaan ku tala jirnaa hadduu la yiraahdo. sanadka 2015 oo kulliyadaha inta badan deegaanka ku yaala aan ka fikrayna inaan degree level kor ugu qaadno oo degree ay bixiyaan. waxay la kowsan doontaa kulliyaddani iyadoo dhismayaasha chiefka iyo adeegyadii kale ay u dhamaystiran yihiin inay degreega programka ay bilaabaan bay noqon doontaa. intaa koor kuwa kale intana ay sii bilaabaan. dhinaca kale maareeyaha kulliyadda waxbarashada macallimiinta dowladda ayaa sheegay inay mashaariicahani ay dabooli doonaan dhammaan baahiyaha loo qabay dhanka chiefka. dhismahan oo ah dhismo ballaarin kana kooban 3 mashruuc kana hadda joogno waa dhismihii loogu talagalay chiefka dumarka oo ka kooban G+2 kii rag oo asal nooca oo G+2 ah iyo hoolkii graduation hoolka ahaa oo baahi weyn ay u qabtay kulliyadda ayaa naloo fuliyay sanadkan naloo bilaabay sanad 2013 ana rajaynayna in naloo dhameystiro sanadkan. dhismayaashan idin muuqdo waa dhismayaal aad ay kulliyadda ugu baahneed si adeeg bixinteedu u noqdo mid hufan oo dhameystiran. si loo bilaabo degreega 2015 caqabadihii taagnaa kuwa ugu weynaa ayuu ka mid ahaa dhismayaashan. haddana aan rajaynayno in baahida iyada ah ay naga daboolanto 2015 aanna bilaabi doono u diyaar garoobeyna waxbarashada degreega ah. haddana aan sii dhamaystirnay qaybihii dibloomka ahaa ee hore sii socday. mashruucani oo ka mid ah mashaariicda laga bilaabay gudaha kulliyadda macallimiinta dowladda sanadkan 2013 ayaa maraya meel dhexe iyadoo la soo gabagabeyn doono sanadka 2014. Cabdi Xakiim Maxamed, SRTV, degmada dowladda ee gobolka Liibaan.